رئيس الوزراء ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa booqday garoonka Stadio Wish ee Stadio Lugano oo ay ka socoto tartanka xiisaha iyo xamaasadda badan ee kubadda gacanta kaasi oo maamul gobolka Banaadir ugu talagalay inuu ku dhiirigeliyo ciyaaraha kala duwan ee ka socda degmooyinka gobolka Banaadir مسؤولينتان ayaa xiliga ay booqanayeen garoonka kubadda kolayga Stadio Wish ee Stadio Lugano ayaa ka socotay ciyaar aad u xiiso badneed oo ay u soo daawasho tageen dadweyne aad u tiro badan oo kala socday degmooyinka Muqdisho kuwaasi oo kala taageerayay labada kooxood ee tartankaasi ku hardamaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriso oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ugu talagalay tartankani iyo tartamo kale in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed si ay u horumariyaan xirfadahooda kala duwan ee la xiriira sportiska mudane ra'iisul wasaare ku-xigeen waa u jeedaa halkan waa tartankii ciyaaraha kubadda gacanta ee degmooyinka oo aad galabta ciyaar qurux badan ka daawanaysay degmooyinka Warta Nabadda iyo Cabdicasiis waad u jeedaa dhalinyaradii waxay u jeesteen horumarka iyo nabadda dalka waxaana muuqata in Soomaaliya ay horumar gaartay horumarka caasimadda iyo horumarka dalkana ra'iisul wasaare ku-xigeen waxa mas'uul ka ah waa dhalinyaradana habka kaliya ugu habboon waa sportiga isdhexgalka bulshada maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaarahana mar walba waxay u taagan yihiin sidii dhalinyarada loo siin lahaa fursad oo ay ku muujiyaan horumarka dalka ka jira gaar ahaan horumarka caasimadda ciyaarahan sababaha loo qabtay waxa kale oo kamid ah in la kordhiyo nabadda iyo horumarka ummaduna nabad iyo nolol haday hesho waad arkaysaa sida ugu riyaaqayaan u farxayaan maantana waxa haysanaa madax dawladda oo runtii nabad iyo nolol hirgelisay ummadii u istaagtay Soomaaliyana cagaheeda ku istaag sidii horena ku soo celisay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa dhankeeda tilmaamtay in wasaaradda dhalinyarada ay u taagan tahay dhiirigelinta iyo garab istaagga dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidoo kale dardargelinta sportiska dalka waxa socda tartankii kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir kubadda gacanta andhaho ee degmooyinka gobolka Banaadir oo aad galabta daawashadeeda nagala soo qayb gasho waxay noo tahay gobolka iyo wasaaradda farxad aad u weyn dhiirigelinta iyo horumarka sportiga Soomaaliyeed oo ku talaabsanayo waa kaaga mahadcelinaynaa kaalintii aad ka geysatay dhammaan madaxda kale ee qarankana sidaas la mid ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo dhankiisa hadlay waxa uu tilmaamay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay xoojin doonto barnaamijyada kala duwan ee lagu dhiirigelinayo dhalinyarada iyo sportiska si loo xoojiyo xirfadaha ay dhalinyarada uga qayb qaadanayaan horumarinta dalka marka waa inaan dhiirigelinaa ciyaaraha waxaan bari dhawey oo dhowr bilood ka hor aan ka qayb galay anigoo madaxweynaha matalaya ciyaartii Burundi oo ay kooxdii kubadda cagta ee ka socotay Soomaaliya ciyaar aad u wacdaran runtii ay soo bandhigtay haddii aynu halkaa kaga wadno dhiirigelina dhalinyarada ciyaartooyga dhiirigelino hawlwadeennada iyo wasaaraddaba waxaynu ilaahay idinkiisa ka qayb gali doonaa koobka Afrika Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho